madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkii hore munaasabadda xiritaanka kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ku saxiixay sharciga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya. Sharcigan oo ay beesha caalamku riixaysay in la meel mariyo ayaa waxa imika soo baxaya daldalooyin la dalbanayo in la cadeeyo oo ay ka mid yihiin in sharcigan uu gabi ahaanba hirgeli karo in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karto iyadoo la hubinayo awood qaybsiga beelaha. Dooda Khamiistii caawa aynu ka eegayna waxa igala qayb galaya xildhibaan Fawziya Xaaji Yuusuf oo Muqdisho ka soo galaysa iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo Nairobi jooga stuudiyeena iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kaga jira wadanka Turkiga magaalada Istanbul. Soo dhawaada waxaan ku hormarayaa xildhibaan Maxamed Xasan oo jooga magaalada Nairobi. Xildhibaan sharcigan wala dhaliilaya waxa leeyahay doorashooyinka aad meel mariseen dhaliila ayuu leeyahay ugu horeyn ay sidii uu ku hirgeli lahaa marka xaqiiqda idin ma muuqato miya markii aad meel marinayseen sharcigan waa mahadsan tahay marka hore ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa dhageystayaasha dhamaantood intana daawanaysa runtii sharcigan waxa ka horeeyay horta wasaaradda arrimaha gudaha keentay sharci sharciyada ay soo diyaarisay oo 16 page ah oo runtii aad u baalmarsanaa dastuurka marka baarlamaanka federaalka ayaa kadib sharcigan wasaaradda sharciga dib uga celiyay oo soo bilaabay oo gudi loo saaray runtii sharciga soo waafajiyay dastuurkii sharcigan waa sharci dalku u baahan yahay laakiin dhaqangalkiisa waxa laga yaabaa hadda saacadan la joogo in dabaqadiisu hadda aanay suurageli karin sababo jira awgood sida aad sheegtay beesha caalamka dadka su-aasha ka keenay kamid ahaayeen anagu sharcigan markaan sixinaynay runtii waxaan arkaynay sharcigan inuu yahay mid macquul ah inta ugu badan baarlamaanka ayaan codsiiyey sharcigan aan ku ansixinay oo 172 ah saddexda qodob oo beesha caalamka ay su-aasha ka keenteen waxaan aaminsanahay guddi hadda guddoonku u saari doono ayaa soo dhirin doona soo xalin doona laakiin qaybaha ugu muhiimsan oo ah sharcigan meesha uu ka dhameystirmi karin xildhibaan waa mahadsan tahay waxaan idin ka codsanayaa waqtigan aad u yiri inaad soo koobtaan oo qodobka toos u aadaan xildhibaan Fawziya Muqdisho kaga jirta waxaadna ka mid tahay xildhibaanadii sharcigan codkoodii maalinkii goobjoog ka ahaa ma aadan codeyn marka dawladdan waxay tiri danta guud ayaa ku jirta adiga maxaadan u codeyn sababtan maxay ahayd marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan horta hambalyo siinayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo dadajiyay oo ka gaarsiiyay waqtigii iyadoo gabaabsi yahay goorta doorashada la galaya inuu keeno sharci wadanka doorasho oo wadanka laga hirgeliyo aniga sharciga waxaan u arkaa inuu ka saxsanaa kii kale ee proportional representationka ee ahaa kii loogu talagalay dalalka loo sheegay saddex qodob kaliya ahaa doorashada xisbiya la galaya xisbiyadaas loo tartama xisbigii soo baxa ayaa dawladda dhisaya ka xisbigan imika constitutionka ka horjeeya xalay sharcigan imika markii guddigii loo dhiibay guddigii way soo eegeen waxa la yiri soo weydiiyay bal mar labaad dadka waxay ka qabaan markay wax soo ururiyeen talooyin soo maqleen qaar waxay tana keeneen sharci totally aan kii ahayn kii ba guddiga kii ay Council of Ministers ku soo ansixiyeen anaguna akhrinta koobaad aan galay mid kale keeneen oo ka duwan oo majoritarian la yiraahdo ama horeeya hela sharcigani qodobka constitution 12 13 ilaa 22 intaas oo dhan buu ka horjeedaa wuxuu kaga horjeedaa citizenku xaq ma wada laha barakacayaasha oo 2 milyan iyo 400 milyan haweenka qabaa'ilka aan ku jirin baarlamaanka gobolka Banaadir intaas oo dhan xuquuqdeeda wuu la maqnaanayaa sababtuna waxa weeye waxaa la yiri kursiga jifaale 4/5 buu ku baysgareysay haddana xisbi baa maxay ahayd Kenya haddana dadkoo dhan baa kursiga u codeynaya haddana deegaan baa la geynaya intaas oo dhan baa laga rabaa waqtiga soo socda oo ku filayn in la wada qabto anaga marka waxaanu lahayn groupka iyagii ka horjeeday sharcigan waxa ka fudud kii kale ee dadka dagaalada gala loogu talagalay sharcigani waa constitutionkana uu ka horjeedaa xuquuqda citizenkana ma ogola waa mahadsantahay 4/5 kii lagu diiday kaadi wax yar Usmaan kii lagu diiday 17 sanadkii 17kii baydhabo kii lagu ansixiyay weeye kii garowe lagu ansixiyay 2018 kii
kii constitutionka ku qornaa weeye intaasoo dhan buu sharcigan ka duwan yahay oo waa mid cusub oon intaasoo dhan ka horjeeda. waa mahadsan tahay xildhibaan fiqi adaan ku imid waxaa leeyahay baalihiina waa la dhowrayaa awood qaybsigooda qof iyo codna way dhacaysaa say isu qabanaysaa taas. horta waxaa weeye cismaan waa mahadsan tahay asxaabta xildhibaanadana waa salaamaya iyo shacabka Soomaaliyeedba ee daawanaya runtii aniga waxay la tahay sharcigani wuu soo dhaafay xilligii la dhihi lahaa sharci ma yahay mise ma ahan baarlamaankii federaalka ahaa ayaa soo ansixiyay madaxweynaha saxiixay intaasna ma isku raacayso wax dastuurka federaalka diidan tan xigta oo ah in la dhowrayo 4.5 iyo hawlaha kale oo aad sheegtayna dalka Soomaaliya laba shay baa la isku darsaday ummadda Soomaaliyeed isku darsadeen waa dhul oo juqraafi ah iyo dad waxay la tahay hadda inaysan suurtagal ahayn in dhulka Soomaaliya oo dhan ay doorasho ka dhacdo dhulkii qaarna qayb arrimo siyaasi uu ku maqan yahay qaybna arrimo amni oo kooxaha argagixisada gacantooda ku jira marka waxa kaliya oo soo haray waxay tahay dadkii la isku daray dadka la isku darayna waxa weeye 4.5 loo bixiyay 4.5 meel kale kama imaan wax kasto Soomaaliya doorasho lagu galo dadka Soomaaliyeed un baa ka soo qayb gali lahaa 4.5 kaas un buu ayaa looga soo qayb gali lahaa marka aniga ma arko in hadda marxaladan hadda la joogo oo dadkii aan la tirin oo maaragtay deegaamadii badankoodii in badan Soomaaliya barkeed ay banaanka jirto in hadda la dhihi karo waxa xaq ay leeyihiin dadka hadda maqan inay doorashada ka qayb galaan marka waxaan isleeyahay arinta ugu munaasabsan oo saacadan hadda la joogaa lagu soo heshiyo ummadda Soomaaliyeed hore ugu soo heshiisay waxay tahay in dadka Soomaaliyeed siday u dhasheen iyo deegaamada ila dad cirka ka soo dhacaya ma jiraan inay doorashada adiga waa codaysay maxaad u codaysay marka sharcigan inuu shaqeeyo aniga waxaan u codeeyay sharcigan inuu hirgalo sharcigan sharci adduunka ku cusub maahan adduunka barkiis wadanka joogtida Ingiriiska ayaa ku dhaqma wadanka Mareykanka wadamada ugu weyn oo dimuqraadiga ku dhaqma geeska Afrika Kenya iyo Ethiopia Uganda wadamadaas oo dhan baa ku dhaqma marka maahan sharcigan wax hadda adduunka ku cusub oo anagu cid ka soo jeedo فوزيان وصل لابنيا فوزي أديك واحد دليشي مركا ما حكولها هبون شرعيان دليشي سوى حويه هذا فقه وحوي يوروبا لقى قدق ما كينيا لقى قدق ما يوغندا دلك سودان دقال كما السعودية وددك كرسي قبيل مالي كرسي وحا لي قبيل باله حسب بقى كينيا وحكلوا لي عيد والباو عضينيسا بل سيدا الله فرسمين دونو ديغا أناقا وحن كنت ليني شنتي دولة قبلات من أفر مقالو من شان قوبات هلقا سمايو دولة قبلات كيبا لباتن بس هلقا سمايو ميلو هلقا عضيو عاصمتنا 7 دقمة دبل هلقا ديقو انتاسو نبتقليانا إلى 3 مليون إلى 4 مليون وكعضي كرتا إيقو حرة قفكي ربان دورانيا حسبك ربان دورانيا لكن سمت قبيليسن oo aan la tagi karin la yiri goob baa la geynayaa waxa la geynayaa qofka beeshiisa in badan meelooda ma tagi karto haddana xisbigi qofkii xisbigu daacad u yahay mise wuxuu daacad u yahay qabiilka 4.5 in laga saaro danta Soomaaliyeed bay ku jirtaa waa kugu soo noqonay Fawziyad ma santahay xildhibaan Maxamed oo qadka Nairobi kaga jira see loo farsameynaya adiga runtii sharcigan waa sharci dalku u baahnaa xildhibaanada waa mahadsan tahay dalkan dabaqa shanaad lagama soo ridi karo dadka Soomaaliyeed waxbay ku soo heshiyeen is-aaminaadii baan wali dhaqan galin dadku inay is-aaminaan baa la rabaa inay iska dhaxarkaan sharcigan waxa loo dhaqan galin karaa isugu aan ku faahfaahay wax yar raali ah sharcigan waxa lagu dabaqay aaminaadii dadkii inay is-aaminaan waxa lagu dabaqay deegaamadii dadka laga soo dooranayay in dadkii ay wax soo doortaan waxa lagu dabaqay dastuurka federaalka ah qodobadiisa in xildhibaanadii ay shacabku soo doortaan xildhibaanaduna ay doortaan madaxweynaha dhaqan gelintiisa waxa loo baahan yahay inta yar oo ka dhiman waataan ku sheegay guddi baa loo saari doonaa guddoonka guddi u saaraya saddexda qodob oo konsaanka beesha caalamka ka muujisay iyo dad kaleeto iyo xildhibaanada hadda ay ka mid tahay leedahay xuquuqda dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay waa waxa loo fadhiyo hadda lagu dari doono waan la muujin doonaa sharcigaana waa sharci dadku ay ku qanci karaan haddii laakiin sanduuq la xiro oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka go'aan ka gaaray xamar go'aan la iga gaaro dadkii Kismaayo waxay ku soo doorteen xamar magac kale laga soo saaro dadka Soomaaliyeed waata xildhibaan Maxamed aad baa u mahadsan tahay fiqi adoo soo koobaya marka xagee loo socdaa marka intaan ay joogto waxaana la sheegay in mayba ay bilaabmayso diiwaangelinta soona koob Cusmaan waxa weeye horta sharcigan dhowr caqabadood baa haysta madaxweynuhu maalin dhaweeto wuxuu yiri dalku doorasho galay laakiin practically dalku doorasho ma galin waayo diyaar uma ahan executive-keena golaheena fulinta ee Soomaaliya jira
waajibaad badan uu saaran yahay inuu sharcigan ay hirgeliyaan waxa waajibaad ka saaran yahay inay dowlad goboleedyadii soo celiyaan waa number 1 oo dowlad goboleedyadii heshiis la galaan gaar ahaan laba dowlad goboleedyada weyn oo dowladda dhexe khilaaf kala dhaxayso numberka labaad waxa weeye miisaaniyadda sharcigan oo dowladda Soomaaliya laga rabo 20 milyan lacag ku dhow diyaar ma ahan number qodobka saddexaadna waxa weeye amniga qodobka afraad oo ugu muhiimsan waxa weeye waqtiga xaqiisa oo 8 bilood 9 bilood baa ka hartay xilliga xildhibaanadan la rabay in doorashadooda la galo marka dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxay sheegayaan inaysan hadda waqtigan xaaliga ah oo la joogo haddii aan la xalino si degdeg ah maalinkii 24 saac hadaan laga shaqeyn inaysan suurtagal ahayn in sanadkan hadda aan ku jirno doorasho qof iyo cod ay dhacdo aad baad umahadsan tahay xildhibaan fiqi waana ka xunnahay fawziya qadkaa ka go-ay barnaamijka nagala qayb galaysay laakiin waxaa ila sii joogay xildhibaan axmed macalin fiqi iyo maxamed xasan idriis intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waad mahadsantihiin fiqi iyo xildhibaanka intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawaya caalamka waadna ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo